waxaa shalay galinkii dambe orod lagu kala saarayay dhalinyarada ciyaaraha orodka lagu qabtay garoonka Xaaji Daahir Stadium ee magaalada Boorame ee gobolka Awdal. Orodkan oo ka kooban 1500 mitir ilaa 100 mitir ayaa loogu talagalay in lagu kala xusho ciyaaryahanadii orodada uga qayb gali lahaa gobolka Awdal ciyaaraha gobolada Somaliland oo bishan dabayaaqadeeda ka furmi doona caasimadda Hargeysa. ugu horeyn waxaa ka hadlay gudoomiyaha ciyaaraha fudud u qaabilsan wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada iyo dalxiiska ee gobolka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله maanta halkan waxaan ku qabanay orod training oo aan ku kala saaranay qoryahanada ka kooban qaybihii 5,000 1700 boqolka 400 alxamdulillah waan intiina waan helay marka ugu horeysan waxaan salaamayaa bahda saxaafadda oo dhamaantii gaar ahaan TV-ga qaranka Raya TV iyo cidii kale markaan saxaafadda ka shaqeysa alxamdulillah sidii aan doonayna way noogu dhacday orodiyahano mustaqbalkoodii la heer caalami gali karo oo una daayar ayaan maanta halkan ka aragnay waanan waxaan u diyaar galnay inaan koobkii gobolada aan ka qayb galno ay Somaliland iyo caalamkaba ay tusaan rikoorka halkan maanta ay ku hayaan halka ay ka sii waliba sidoo kale waxa hadalka qaatay isku duwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska ee gobolka Awdal Samaroon Cabdillaahi Cilmi isagoo sheegay in tababar la siin doono inta ka hadhay ciyaaryahanada orodka ee gobolka Awdal. ilaahay baa mahad leh waxaan salaaminaa dabcan baada TV-ga ugu horeeya TV-ga qaranka dabcan Raya TV kulay sidoo gudoomiyuhu sheegay tartankii baa la kala saaraya dhalinyarada oo ka soo bilowday 1500 ilaa 100 mitir kulay dhalinyarada tababaran weeyaan insha Allah waxa la siin doonaa inta ka harsan 18 sheekaas tababar baa la siin doonaa u gaara iyagoo magaca gobolka u tartami doona gobolada kulay gobolkeenu caan buu ku yahay gobolada kale oo dhanna runtii halkan bay soo eegaan oo gobolada ciyaartooyga Awdal ee orodyahanada oo la iska ilaaliyaa insha Allah sanadkan waxaan rabnaa in score fiican sameeyno dhalinyaro tababaran oo niyad u dhisan tahay oo la garab istaagayo inay tagaan halkaas dhammaan wada ag joogno. waxa uu sidoo kale baaq iyo fariin u diray ganacsatada iyo qurbajooga gobolka Awdal. waxaan leenahay kulay dadkii ganacsatada qurbajoogi wali lama hayo marka insha Allah waxa laga filayaa sida qaybkooda inay noqdaan gobolada kale dhalinyarada soo kortay ee gobolkii magaciisa u cararaysa inay wax u qabtaan insha Allah waan ka rajaynaynaa annaguna ka wasaarad ahaan iyo bulshadii gobolkuba waxaan u wada heegan u nahay inaan dhalinyaradaas niyadda u dhisno iyagoo faraxsan meesha tagaan tartamaan ilaa inta ay dhamaanayso insha Allah inaan garab taagnaano intaas ugu muhiimsan waxaan isku keenyay dadkan way ka soo qayb galeen daawanayeen tartanno ka socda garoonka insha Allah kawaan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay waana salaamintii wasalaam alaykum. ugu dambeyntii waxaan dareenkooga wax ka weydiinay dhalinyaradii ku guuleysatay orodka Awkaya Ahmed waxay ka mid yihiin dhalinyaradaasi ku guuleysatay ayaa nooga warbixinaya dareenkooga. 500 guuleysay magacayguna yahay Awkay oo gala xaafada Batacas aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan ka galo gobolkayga tartan oo nu soo jiido magac iyo wax kasta inaan soo jiido gaar ahaan gobolada Yurub iyo wax kasta aan tago ayaan rajeynayaa insha Allah. magacaygu waa Axmed Cabdi Saciid waxaan ahay orodyaanka ordaya waqtiga laga bilaabay gobolkan Awdal waxaan ku guuleystay 200 mitir iyo 400 mitir markaas hadda waxaan u diyaar garoobayaa sidii aan ugu dadaali lahaa inaan noqdo orodyaanka Somaliland haddii waxaan ahay orodyaanka gobolka Awdal laakiin waxaan ku dadaalayaa inaan noqdo dhammaan Somaliland oo dhan orodyaanada ordayo shucuurtaada ka waran aad ku guuleystay 400 iyo 200 mitir shucuurtada wallahi hadaan ka warramo aad iyo aad baan shucuurtada fiican tahay mana soo koobi karayo waxyaabihii aan ka filanayay niyaddan ku haystayna waan guuleystay waxyaabihii aan doonayay inaan soo bandhigana waan soo bandhigay waan tusay bulshada taageerahaygana waan tusay. waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku rajo weyn inay orodka guul ka gaadhaan. barkaadana ciidid maanta halkan tartanna waxa lagu qabtay Sareeba waxa ka dhinaa 1500 laakiin insha Allah 1500 ku guuleysan doonaa goboladana waxaan soo hoyn doonaa guul khayr leh insha Allah intii soo baxdayna hambalyaan leeyahay. si kastaba ha ahaatee waxaa la rajaynayaa in dhalinyaradaasi ay guul u soo hoyn doonaan gobolka Awdal. waa Cabdiraxmaan Jaamacaye telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV magaalada Boorama.